kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada janalkeena ka ah wararka aan ku soo gudbino wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ku sii jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya hadaba wuxuu ku saabsanayaa daawo doontaan ujeedka safarkiisa waxa uu qusayo maxaa kala socotaa in madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo wasaare Rooble markaas ay sameynayaan isku soo dhawaasho labada dal ah waan idin soo gudbin doonaa soo kale waxa daawo doontaan kulan xalay ka dhacay Muqdisho oo u dhaxeeyay midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha maamul goboleedka waxa lagu sheegay inuu yahay casharaf loo sameeyo hadaba xog xasaasi ah halkaasi ka soo baxaysa iyo khudbad uu jeeyay Shariif Sheekh Axmed oo markaas kaga hadlay marxaladii ugu dambeeyay dalka soo kale waxaan idin soo gudbin doonaa maleeshiyaadkii dhawaan waray magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle oo dhufeeso iyo maleeshiya kale ku soo daray duleedka magaaladaasna soo dhoobtay hadaba xog iyo saansaan dagaal oo laga dareemayo duleedka Jowhar ayaan soo gudbin doonaa soo kale waxaad daawan doontaan oo janalkeena qayb ka noqon doona dowladda federaalka ayaa la sheegay in ay war rasmi ah ka soo saartay xiisada ka taagan magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan gaar ahaan halkaas oo dhismaha Hirshabelle ay walaa xoogan ay ka muujisay Beesha Xawaadle isla markaana la sheegayo in tabashadooda la xaliyay hadaba xog ku saabsan ayaa daawo doontaan qodobadaas iyo wixii soo kordhayaan idin soo gudbin doonaa iyo warar kale ku saabsan gobolka fadlan hilmaamina subscribe ku saartaan gabadha kana furtaan oo shirageysan saxibadii meel kasta joogaan idinku markaas like kuma tagin oo reebaya aad baad ugu mahadsantihiin markaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu wadaa inuu safar uga baxo magaalada Nairobi ee dalka Kenya sida ay wararku tibaaxayaan sida qorshuhu yahay Mr. Rooble wafdi uu hogaaminayo ayaa tagi doona dalka Kenya kadib markii heshiis laga gaaray khilaafka doorashada ee muddada badan soo jiitamay kaas oo muddooyinkii dambe ku hoolnaa ra'iisul wasaare Rooble xogta ayaa sheegaysa in wasaaraha uu casuumad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxaana lagu wadaa in safarkan uu noqdo mid xal lagu gaarayo Midowga kala dhaxgalay labada dal wali lama shaacin taariikhda rasmiga ah ee safarka Rooble waxaa soo loo badinayaa toddobaadkan gudihiisa Rooble iyo Uhuru Kenyatta ayaana laba toddobaad ka hor si kooban ugu kulmay Djibouti halkaas oo ay ugu wada qayb galeen mas'uulkii madaxweynaha dalkaas Ismaaciil Geele Kenya ayaa horay xayiraad ugu soo rogtay duulimaadada iskaga kala goosha labada dal taas oo saameyn xoogan ku yeelatay socodka labada dal waxaana dad badan ay ku kala xaniban yihiin caasimada labada dal iyada oo go'aanka uu dhaawac xoogan gaarsiiyay ganacsatada Soomaaliyeed safarka Mr. Rooble waxaa la filayaa in xal loo gaaro arrinta duulimaadada iyadoo meesha laga saarayo khilaafka soo cusboonaaday ee labada dal xil rasmi ah dibna loogu soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya wasaare Rooble ayaana ku guuleystay in dalku u jiheeyo dhanka iyo doorashada isagoona dib u soo celiyay isaaminaadii madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya isaaminada siyaasadeed oo horay u kala tagay khilaafka doorashada markaas waxa uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii uu ku wareejiyay awoodda amniga iyo doorashooyinka Mr. Rooble ayay u fududaatay in hoos uu soo gabagabeeyo dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay ku kulmeen Muqdisho kulankaasina waxa uu u dhaxeeyay midowga musharaxiinta iyo madaxda maamul goboleedka dalka midowga musharaxiinta ayaa sheegay in kulanku ahaa casharaf ay u sameeyeen madaxweynayaasha maamul goboleedka dalka iyo gobolka Banaadir oo markaas ka qayb galay munaasabada ka dhacday markaas ka qayb galay heshiiskii lagu siixay arrimaha doorashooyinka oo markaas garowdeen ay ka hayeen munaasabada ayaa waxa ay ka dhacday hotelka Jazeera lagu magacaabo iyadoona halkaas ay khudbadaha ka jiideen qaar ka tirsan midowga musharaxiinta Mucaaradka madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed oo munaasabada ka hadlayay ayaa waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay dadaalada kala duwan ee dalka ay ugu badbaadiyeen midowga musharaxiinta iyo madaxda maamul goboleedyada isagoo ku ammaanay maamul goboleedyada madaxdooda iyo gobolka Banaadir kaalinta weyn ay ka qaateen arrimaha dib u heshiisiinta iyo doorka siyaasadeed ee ka ciyaareen nabadgelyada iyo khilaafkii hareeyay doorashooyinka oo ugu dambeyntii xal buuxa laga gaaray shariifka wuxuu sidoo kale uu xusay in dowladnimada ay tahay mid aad u wanaagsan isla markaa loo baahan yahay khilaaf walba oo taagan in miiska hadalka lagu dhameeyo asiguna doorka halkaasi ku sii asiguna markaas amaanta uu qubay Mr. Rooble wasaaraha dalka wuxuuna sheegay in kaalinta koowaad uu asigu qaatay isla markaana heshiiska laga gaaray khilaafka doorashada uu horseed ku ahaa ودمبتي شريف أجانا ومهد عليه الوزراء وحورا شيء المشرحين تأولي قرب تاجين دلالة وضو أنا نشقين دونان midowga musharaxiinta ayaana ahaa tan waxa u muuqdaan kuwa markaas wasaare Rooble garab wuxuu ku siinaya dadaalada uu ka wado arrimaha doorashooyinka iyo sidii markaas dalka doorasho xooli xalaal ay ugu dhici lahayd qaybihii hore ee janalkeena ka ah wararka ayaa daawanaysaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ku saaran gobolka furo
una sheer garay saaxiibadii markasta joogan idinko markaas kuma tiga laagana inuu reebaya aad baad ugu mahadsantiin socodada wararka waaweyn Soomaaliya caalamka ee janalkeena ku soo gudbino markaana xukuumadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqday in wax laga qabanayo tabashada beesha Xawaadle ay ka qabto dhismaha maamul goboleedka Shabeelle kadib khilaafkii ka dhashay hab qaybsiga awoodeed ee maamulkaasi wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta al-Cadaala ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ay ka go'an tahay xal u helidda cabashada ay shacabka ay ku dhaqan gobolka Hiiraan ka qabaan dowlad goboleedka Shabeelle asigoona markaasi la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay kala shaqeyn doonto maamulka Shabeelle si shacabka reer Hiiraan loogu qancin lahaa cabashada muddada dheer qabtay beesha Xawaadle ayaa hor u qaadacday doorashadii ku soo baxeen madaxweyne xal ugu daawiyay ku-xigeenkiisa Bageed waxaana tan doorashadii kadib shacabka Hiiraan ay soo bandhigeen barnaamijyo ay kaga soo horjeedaan Shabeelle soo kale khilaafka ka dhashay awood qaybsiga maamulka Shabeelle ayaana abuuray dhaqdhaqaaq ciidan oo hubeysan oo lagu magacaabo golaha kacdoonka Hiiraan oo si cad uga dagaalamay Shabeelle iyagoo diiday in xal gudaha uu tago magaalada Beledweyne lagu caleemo saaro khilaafka ka taagan Shabeelle ayaa waxa uu qayb ka ahayd qodobadii la soo qaaday dowladda dhexe madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir shirkii muddada 4 maalin ugu socday Muqdisho waxaana lagu heshiiyay in la xalliyo khilaafka ka dhashay awood qaybsiga maamulka Shabeelle beesha Xawaadle ayaa ku doodaysa inay xaq u leedahay madaxweynaha maamulka Shabeelle taas oo sheegtay inay qayb ka ahayd heshiiska lagu dhisay maamulkaas halka beelaha kalena ay sheegeen in taas ay ahayd muddo xileedkii koowaad oo kaliya beeshan aysan xaq u lahayn xilka madaxtinimo ee maamulkaasi qabiil hore ayaa weli daawanaysan hilmaamin inaad subscribe u saarto كمبلايكنا على الفروت ونشر قريسو صاحب بدأ مالك استيجوغان أديقو مركز كومنتيق لايقري نور ربي حاد بدوما سنتين مركانا عدية آنو اغنو اسلا ورركا كو آدن أرماها جوهر انتان كبحن حوك هيشي جانال كاكاها ورركا يا حقيقينا يا إن مليشيدي مع يسري داها دوان ور مقالة جوهر حرنت مامل كل شبه لو قرشينيان إن مركا ورر يكفلان جوهر ورركا آن هلي أيا تماما يا إن تبنيوكم ده مليشيدي مع يسري هو بس إذا ما كان كسوق بي سودين تقبل كشبه الله هو سيكسر دوادين بلها مقالة جوهر halkaas ay koodan abaabul dagaal waxna kamla maleeshiyada macusli ayaa waxa sheegay in dadaalo la sameeyay kadib dagaalkii ka dhacay magaalada Jowhar ee san ka soo bixin waxna tijaah isla markaana hogaamiyihii ka xirnaa loogu daray dad kale taasina ay qasbayso in ay qaadaan ku sheegaan duulaan kale oo lagu soo afjarayo kaga xiran magaalada Jowhar dhinaca kale xogta aan helay ayaa tilmaamaysa in maamulka Shabeelle uusan ku baraarugsan qatarta iyo abaabulka ka socda duleedka magaalada Jowhar isla markaana ay wajihaan weerar kale oo qasaaro u geysa dagaalkii ka horeeyay laba toddobaad ka hor ka dhacay Jowhar waxa uu dhintay in ka badan 10 qof oo ay ku jiraan saraakiil sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha maamulka Shabeelle xali guudaha Xuseen kuwaas oo ahaa ilaaladiisa qaaska ahaa dagaalkaasina ay ku geeriyoodeen ay macusreyda ay la galeen ilaa hadda ma jirto waan macusreydaasi lagu doonayo in lagu xaliyo isla markaana in loo sii dayo shakhsiga hogaamiyahooda ahaa oo markaas ciidamada ammaanka magaalada Jowhar ay gacanta ku dhigeen isla markaana xabsiga uu ku jiro ilaa imka taas oo macusreyda ku qasbaysa in mar kale ay abaabul dagaal iyo soo kale daantaasi iyo aruursi ay ka sameeyaan gudaha duleedka magaalada Jowhar ee caasimadda gobolka Shabeelle ayagoo wararka ugu dambeeyay sheegayaan in aatan ay ku dhow yihiin in dagaal mar kale halkaas uu qarxo isla markaana ay weeraraan qaybihii gabagabada ayaan ku sii dhownahay daawadayaal hilmaamin subscribe وسارسان قبل كنا فرصة ونشر جلسان ساحبين مركز يجوجان ذيكم مركز كم تيجي لاقينا إنه ربي أدب تقوم ناسنتين أشهد حد يدير ورك وسارسان سماري عالم كه أو مركز أنا هلكم كسوق بينه كيف قاتها دبليس كذا كم كسمينه ورك قبل كجيس كانوا أقوى وين وربعين تدل كذيبي أي شيء جسا إن ديار الدجال أنا هي ميك ضده أكوب إرباطن أي مالنتي شري أو سبتي هي تكبر برتين مجرد بنقاسي برك دل كازي يوريه ديار الد أولهم مقعب جري جمال بن عامر أيها كجري وشركة أس وكل أي اللي جاء كإركة بينين لو مقعب يكون مجرد هذي ديار الد أيانا قيب كه دور تسمتير أي كحدة مرشل قليل حفتر أي وجود بالدجاجين Qodobo guridi ka soo wareegatay howlgallada military ugu magacdareen howlgalkii karaamada lahaa marshal xaftar ayaana goobjoog ka ahaa tuskaasi guud ahaan daawadayaal waa naga inta wararka waaweyn Soomaaliya caalamka aad kala socoteen janaalkeena ka wararka aan ku soo gudbinay saakay qodobada ugu waaweyn ee dalka iyo dibadiisaba oo markaas
intooda ugu badan yihiin kuwa dalka lagu dhisay isla markaana ka qayb qaadanaya dib u dhiska dalka fadlan idinkuna halmaamina inaad ugu dhiirigelisaan subscribe-ka ku mustaqbalkan aad noo rabtaan kana qayb qaataan dib u dhiska dalka aan ku sameynayno had iyo jeerna waan kaga mahadcelinahay la socoshada channelkeena ka wararka aad baad ugu mahadsantihiin